wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdilaahi Abubakar Cismaan oo soo gaaray magaalada xuduudeedka ee loo yacdo isagoo halkaas kula kulmay qaar kamid ah shacabka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salal kulankaasi uu la yeeshay wasiirka ayaa waxa uu bishaaro wanaagsan ugu bishaariyay guud ahaan dadka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salal bilowga sarfeenka wadada isku xiri doonta min loo yacdo ilaa Boorama taasi ay si weyn u sugayeen guud ahaan dadka ku kala dhaqan gobolada Awdal iyo Salal isla markaasna ay ahayd wadadaasi riyada ugu weyn ay ku riyoodaan guud ahaan dadka ku dhaqan goboladaasi aan soo sheegay halkan kuma soo koobi karo mas'uuliyiintii munaasabadaasi uu ku shaacinay wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka kala soo qayb gashay bilowga sarfeenka wadadaasi isku xiri doonta Milow Yacada ilaa Boorama barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur iyo sidoo kale duqa degmada Saylac oo iyagu gobolka ku soo dhaweeyay wafdigan oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka mashruuca wadadani oo loogu magac daray Milow Yacada fardaha Boorama gabi ahaanba mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa waxay si farxad aan la soo koobi karin ku dheehan tahay u soo dhaweeyay bilowga wadadani isku xiri doonta Milow Yacada ilaa Boorama waxaana hadalladooda kamid ahaa sida tan wasiirkii maareeyuhuna waxaan jeclaysanay maadaama in nahay community-gii dhulkan ku noolaa in idinkana la idin brief gareeyo annaguna aan marka dambe shaqadeedii technicalka gudaha u sii galno waana waxaan wada sugaynay oo aan ku faraxsanahay waana rajooyinkii aan sugaynay baa saakayna hor yaal waxaan ugu mahadnaqaynaa Allah inoo suura geliyay mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka iyo tiimkiisa hogaaminayo dhammaantood waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxa ay jidka u soo mareen 365 kilomitir jidka ku dhow soo socdeen wasi ay noola dareemaan waa karayay wasiirku inuu soo diro tiimka uu ku orda taga laakiin waxa laga maarmaan noqotay inuu nagala qayb qaato farxadda maanta bilaabmaysa wasiir adigii waftiga ku soo dhawaada socon doona sanad iyo bar daraasadda wadadani qoliyaha kambaniga tiimkiisu waxay joogi doonaan meel walba oo intay wadadu marayso ay xog ururin ka sameyn doonaan haday noqoto qaybta dhagaxa ee buuraha haday noqoto inay dhulka carradiisa ay eegaan marka bulshada qaybeedyada gobolka degmada waxaan u sheegaynaa inay la shaqeeyaan soo dhaweyn xogta la ururinayo waa xogta lagu salaynayo nashqada iyo qiimeynta wadada marka cid walba oo ay soo gasho in xog la weydiiyo xogtaas waxaa loo isticmaalayaa kaliya qorshaha wadada markaas si waxaan aad iniga codsanaa inaad ula shaqeysaan si aad u dhow oo waxa weeyaan faa'iido weyn u ah oo aynu muddo badan ba sugaynay ayaa inoo bilaami doona hadduu Ilaahay raado say noo sheegeen madaxdu insha Allah aniguna waxaan isku xiri doonaa bulshada iyo maxaa la raado hadduu Ilaahay raado iyo kabaniga hadduu Ilaahay raado waxaan rajeynayaa insha Allah inaynu si fiican inagu aynu soo garanaynaa deegaan ahaan waxna waa wax deegaankeena u dana oo aynu bulshooyinka la dheernahay aynu gobollo badan oo wadooyinka aan hayn aynu maanta dheernahay maanta wax badan is oran mayno waxaan leenooga fadhiyaa inaynu soo dhaweyno kabaniga oo aynu si fiican gacanta ugu qabsano wadadeena runtii aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa wasiirka horumarinta jidadka gaadiidka oo muddo badan ku taamayay si ay wadadaasi isku xidhaa Boorama iyo Milow Yacada u hirgasho aad iyo aad baan ugu mahad celinaa runtii isagana waxaan leenahay wasiir kulli hawshii aad gashay ee intaas u dhabar adeegaysay mana dhalkeedii maanta waa taan aan hayno halka waana wada muhiima waxa weey wax isku wada isku xidhaysa Milow Yacada ilaa Boorama waxay ka mid tahay wadadani waxyaabaha soo kordhinaya dhaqaalaha horumarka iyo isku xidhka dalka dhamaantiiba waxaan leenahay soo dhawaada wadi soo dhaweynaa wasiirka waxa kale oo ka codsanaynaa muddo hore waxa qolo Turkiya ama Djibouti noo ballan qaaday inay wadada isku xidhan Milow Yacada iyo Saylac inuu noo sameeyo arinta waxa naga horjeegtay wasiirka hore jidadka xirsi baa naga horjeegsaday wasiirka waxaan ka codsanaynaa inuu taana loo suurta geliyo haddii Ilaahay yiraahdo oo iyadna way taagan tahay wali aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa dhamaantiin dadweynaha waxaan ka codsanayaa kulli sidaa la noo sheegay cid kasta oo aragta meel kasta joogtay inay la shaqeyso company-ga maalintii xisbiga kulmiyo ololaha Muuse Biixi wuxuu ballan qaaday inuu dhisi doono oo dhagax dhigay wadada isku xidhan Milow Yacada Saylac aad iyo aad baan runtii waan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ballan qaadkiina uu fuliyay wana taa maanta nu joogno aad iyo aad waa mahadsantihiin
كل dalku runtii dawaynta la sheegay wax farxadno inoo ah oo annaga noo ah oo dhammaanteenba inoo wada ah inaynu maanta halka ku daahfurayno ama bilaabitaankii daraasadda waddada fardaha Lawyacado iyo Boorame runtii hawl badan baa waddadaasi soo gaadhay in badan baa la soo waday ilaa 60 kambani baa u soo tartamay 60 kambani hadba isreefreeb meel kasta soo gaadho aakhirkii 6 markii dambe 3 markii u dambe soo ku guuleysay shirkadda Saba oo runtii ilaahay ka dhigay inay iyadu inoo bilowdo istadhigii qiimayntii waddada waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin wadno isna farxaan oo namatali doona oo u dhaxayn doona bulshada iyo shirkadda oo isku xidhi doona wacyigelintii iyo iska warhayntii hadba meesha shirkaddu marayso iyo dadweynaha waxaan aad ugu faraxsanahay insha Allah taala in waqtiga daraasaddaasi noo dhammaan doontaa uu yahay waqti kooban ku cadaadinay shirkadda inay muddo 16 bilood ah iyo wax ka yar ku dhamayso daraasadda waddada si loo bilaabo bilaabitaankii waddada kadib runtii maanta waa noo farxad inaanu iskugu nimaadno ujeeddo noocan oo kale ah waxaan jeclahay halkan inaan ka caddeeyo ujeeddadan u nimid waxa weeyaan sidii loo bilaabi lahaa daraasaddii waddada Lawyacado fardaha Boorame sida uu sheegay injineeradu waxay qaadan doontaa sanad iyo badh muddo 3 biloodana hawsha waynu qacantan ku sii hayn karaan shirka kamarigaas ku sii hayn karaa inta ay hawshu dhismaheedu bilaamayo runtii annaga waxay noo tahay farxad inaynu hawsha maanta iskugu nimaadno waxaynu nimid inaynu maanta shaacino hawshaas inay bilaabmi doonto laga bilaabo maanta daraasaddaas waxaa kaloo aan jecelahay inaan shacbi weynaha gobollada Selel iyo Awdal aan ku wargelino waxaa la wadaa daraasad waxaa la ogaanayaa waddada dhismaheeda iyo wax kasta u baahan tahay hadday noqoto ciidda halka ugu dhow biyaha halka ugu dhow sambalin baa la qaadaya sambala mararka qaar loo baahanaya in la qaado dadkeenuna waa iska sensitive waxa weeye waddada inta badan dareenkoogu taagan yahay marka haddaad aragtaan tiimkaas shaqo noocaas ay gacanta ku hayaane in la soo dhaweeyo ayaynu aad iyo aad u jecel lahay ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa dhammaanteen inagoo sanoo kale xaflad noocan oo kale inaan iskugu nimaadno waddadaasoo ay noo dhammaatay insha Allah ilaahayna waynu ka rajaynaynaa qodob baan jecelahay in dib ugu noqdo waad ogtiinoo qorshahan wuxuu ahaa in bishii 2 ee sanadkan inuu bilaabmo waxa ay nagu sameeyeen maanta 6 bilood dib u dhac ku yimid waad ogtiinoo caalamka waxa ka dhacay masiibo xanuunka la yiraahdo COVID-19 ayaa isu socodkii iyo hawshiiba dib u dhigay marka taas dib inoogu dhigtay laakiin inagu waxaan jecelahay inaynu timeline-kii loogu talagalay inay hawshaasi noogu dhammaystiranto waxaan jecelahay inaan maayirkana u caddeeyo daraasaddan iyo waddadan la dhisaya waxaa qayb ka ah waa Lawyacado iyo Saylac marka wixii naga tegey way naga tegeen oo ka daba tegi doona laakiin waxaan ku darsan doonaa inaynu hawshan lafteeda qayb ka tahay inaynu waddadan daraasada la sameeyo aan ku koobnaan doonin toos laakiin ay sii mar doonto caasimadda gobolka Selel ee Saylac fardaha deena saa u bixi doonto waxa kaloo aan jecelahay inaan u mahad celiyo dhammaan cid kasta oo ka qayb gashay gaar ahaan bangiga horumarinta Afrika oo maanta hawshan hormuudka ka ah aynu ka rajaynayno dhismaheedana daraasadda markuu dhammaystiro dhismaheedana inuu noo raaciyo kullay intaas hadalkeenu ku kooban yahay idinka xilka idin saaran waa inaad soo dhaweysaan waan idin ogahay dad ilbaxa tihiin oo gobollada galbeedku waa ilbax haddana waxaan jecel lahay cid kastoo idin timaada waa ka qayb hadday nabadgelyo darro la kulmaan way rubood garaynayaan tiimkaasi waxay odhan doonaan halkaa shirkadaha ajnabi iman kari maayaan marka in aad iyo aad loola shaqeeyo inaan ka codsanaynaa innaga waxaana keenay maanta waxa weeye ujeeddada iyo muhiimadda uu leeyahay runtii wax ka muhiimsanna waan u garan weynaa inaan u soo jarmaadno aanu 300 kilomitir idinla soo soconay waddada rafka ah muddada badan ugu qaadatay idankana waxaan jecelahay sidaas leeg inta joogtaana inay ogaato inta inaga maqan inaad ku wacyigelisaan in la soo dhaweeyo sidoo kale aad baan u soo dhaweynaynaa company-ga Saba Engineering mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinayaa kolle hawsha waxa isku dambeyn doona aniga teamkan Saba Engineering saraakiish iyo madaxda dawladda si ay isku bartaan idinku dadkiina reer Lawyacado
waa intaas hawsheenu ku dhan tahay idinku fasax baad naga noqon doontaan annagaas ku dhammayn doona insha allahu wixii aanu kala qaadan doona aad iyo aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu maanta waa maalin weyn waana maalin ay ku wada riyoonayeen guud ahaan shacabka ku dhaqan gobolada Awdal iyo Salal inay wada laamaya ay mari doonaan haddii ay xagga ee basuuragal ka noqoto dhamaystirka wadadani ayaa waxa ay wax weyn ka tari doontaa isku socodka gaadiidka horumarka dhinac kasta oo nolosha bini'aadamka ah وعلى أحمد يريه علي دقدرول وررك بدع TV مقالة سيلا.